hadday ku aysa fiis yari audio dictation-kaagana uu liito taa macnaheedu waxa weeyaan inay muuqaaladaadu kuwa caajis ah video ugu bari doonaa saad ugu leeyahay muuqaaladaada kuwa xiiso leh muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa 6 technique oo muuqaalkaaga ka dhigaya next level kaasoo soo jiidan doona daawadayaal badan dadka badankoodu waxay naga soo codsadeen si aan u edit gareeyo muuqaaladayda barhaan bilowno fiiro gaar ah muuqaalkan waxa intiisa badan adeegsan doonaa button-ka loo yaqaano keyframe barhaan isla yar sharaxno keyframe-ku waa button-ka caawinaya inaad animation ku samayso muuqaalkaaga tusaale ahaan inaad midig u riixdo bidix u riixdo hoos u riixdo korna u riixi karto barhaan isla eegno waxaan adeegsan doonaa barnaamijka loo yaqaano CapCut markaan soo gashano background-kii tagasna aan qorano waxaad arki kartaa inaan tagaskii dul taaganahay tagaskii markaan dul istaagno waxaan ku samayn doonaa afkiisa hore keyframe button-kan ku calaamadeeyay xaggiisa tambana waxaan ku samayn doonaa keyframe kale kadib waxaan jiidi doonaa qoraalkii oon geyn doonaa dhinaca midig markaan dhinaca geyno muuqaalka ayaan dib u daari doonaa si aad aragtaan tagaskii waxa uu yeeshay animation cinematic text markaan doonayno inaan sameeyno cinematic text waxa la naga rabaa inaan soo gashano background madow waxaan ku qoran doonaa qoraal anu hadda waxaan ku qori doonaa editing markaan editing ku qoro zoom ayaan soo oran doonaa editingkii kadib waxaan saari doonaa tictas kadib waxaan leekaysiin doonaa qoraalka backgroundka madow markaan backgroundkii madow leekaysiiyo waan save gareyn doonaa qoraalkan markuu qoraalku inoo save gareysmo dib ayaan CapCut ku noqon doonaa new project ayaan ku dhufan doonaa muuqaalkeena ayaan soo dooran doonaa markaan muuqaalkeeni doorano waxaan tagi doonaa mask waxaan ka sii dooran doonaa mirror fallaadha dheeraad ayaan soo jiidi doonaa waxaan ka dhigi doonaa mirror-ka 70 degree waxaan geyn doonaa xagga sare ee qoraalka waxaan ku samayn doonaa keyframe afka hore xagga dambena keyframe ayaan ku samayn doonaa markaan keyframe-ka dambe gaadhno ayaan soo jiidi doonaa mirror-kii oo waxaan keeni doonaa xagga dambe marka waxay noo samaysmay cinematic text Tolkien avatar markaan rabno inaan sameeyno Tolkien avatar like Somali editor oo kale waxaan u baahanahay inaan soo helno character-kii saad u samayso character ku gaar ah waxaad soo furan doontaa Google Chrome waxaana ku qori doontaa Lexica AI waxaad sii dooran doontaa website-ka ugu horeeya halkaas ayaad ku qori doontaa qoraalkan ku soo dhigi doono description-ka markaas search ayaad oran doontaa waxa inoo soo saari doonaa character aad u fara badan waxaad ka dooran doontaa ka adigu cajabiya anu hadda waxaan doortay character-ka yar saan tusaale ugu bixiyo markaan character-kii doortay waxaan si dhufan doona meesha ku qoran tahay download ama button-kan ku calaamadin doono markaad download-kii tiraahdo waxaad tagi doontaa barnaamijka loo yaqaano photo room si inooga saaro background-ka dambe photo room ayaan oran doonaa start photo waxaan soo gelin doonaa character-kii si wada aragtaanba wuxuu inooga saaray background-kii kadib waxaan sii dooran doonaa transparent markaan transparent nahno export ayaan ku sii dhufan doonaa dan waxaan ka sii dooran doonaa save to gallery saas ayuu gallery noogu galay dan waxaan sii tagi doonaa barnaamijka loo yaqaano pixel lab isaan afka uga soo biino application-ka soo gelin doonaa sawirkii waxaana tagi doonaa meesha ku qortay darow waxaan dooran doonaa character-kii waxaana dooran doonaa midabkiisa oo kale markaan helo midabkiisa saxda ayaan ku dhufan doonaa hadda waxaan haysanaa character-ka midabkiisii zoom ayaan soo oran doonaa oo midabka ayaan afka kaga baabiin doonaa markaan midabka afka kaga baabiino saxda ayaan taabsan doonaa markaan sax taabsano zoomta ayaan dib u celin doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa transparent saas ayaan kusoo save garaysan doonaa kadib waxaan iman doonaa barnaamijkeeni CapCut waxaan soo gashan doontaa elementiyada aan ku soo dhigi doono description-ka saan u sameeyno studio character-ka haddaba waxaan soo gashanay elementiyadii miiskii shaashadii iyo microphone-kii si wada aragtaan shaashadu waxay ka dambaysaa miiska si aad u dul dhigi kartaa waxaad tagi doontaa layer waxaadna kasii dooran doontaa tree microphone-kana saas leeg ayaad samayn doontaa layer tree ayaad ka dooran kartaa markaad sax tiraahdo waxaad soo gelin doonaa character-kii si wada aragtaan waxaan soo gelinay character-kii waxaana daba dhigi doonaa miiska iyo muraayada waxaana tagi doonaa meesha ku qoran tahay layer waxaana kasii dooran doonaa one character-ka ayaan yareyn doonaa waxaana dhigi doonaa meesha ugu munaasabsan markaan saa samayno waxaa inoo dhiman inaan soo gashano afkii yaray dhaqaaqay afka ayaan soo gashan doonaa waxaan ku dhufan doonaa cut out waxaana kasii dooran doonaa chroma key halka yar ayaan ka dhigi doonaa 100 saa wada aragtiin waxa ka baxay background-kii yaray akhtarkii marka waxaan dul dhigi doonaa meeshaan afkii ka soo masaxnay si uu u muuqdo mid hadlaya tagasta highlighting muuqaalkan ka horeeyay waxaan isticmaalay tagasta highlighting dadka badankoodu waxay comment-iga nagu yiraahdeen sida loo sameeyo tagasta highlighting noo soo sameey haddaba maanta waxaan isla eegi doonaa sida loo sameeyo tagasta highlighting waxaad soo gashan doontaa background-kii iyo warqadii aad highlighting ku sameynaysay iyo shape-kii highlighting-ka ayaad leekaysiin doontaa qoraalkii aad doonayso inuu highlight ka dhigto shape-ku waa uu wada qariyay qoraalkii haddaba si aan uga dhignaa highlighting oo kale waxaad tagi doontaa meesha aan ku calaamadin doono waxaadna ka sii dooran doontaa
doontaa meesha ay ku qoran tahay darken si aad wada aragtaan waxa uu noqday highlightingkii haddaba sidee baad ku dhaqaajin kartaa highlightingkii dooro shaybkii yaraa kadibna kasii dooro maski markaad mask kasii doorato ka dooro horizontalna waxaad ka dhigtaa 90 degree ayaad ka dhigi doontaa si aad uga dhigto 90 degree dooro rotate oo ka dhig 90 degree riix horizontalka oo gee meesha uu ka bilaabmo shaybka yar kadibna u samee keyframe waxoogaa yar dhaqaaji timelineka haddana keyframe kale u samee horizontalkiina soo jiid si aad wada aragtaan waxay noo samaysmay highlightingkii aanu isticmaalay muuqaalka kan ka horeeyay avatar animation badanka waxaad aragtaan inaan isticmaalayo avatar animation haddaba sida loo sameeyaa soo furo Google Chrome waxaad ku qori doontaa man stock png waxaad ka dooran doontaa nimanka halka ku soo baxaya mid kamid ah anu kan ayaan dooran doonaa waana soo dhowlgareysanaya markaan soo dhowlgareysto waxaan la iman doonaa barnaamijkeeni photo room si backgroundka inooga saaro saad wada aragtaan waxa inooga saaray backgroundkii waxaan ku soo dhufan doonaa transparent export ayaan kasii dooran doonaa save to gallery ayaan kasii dooran doonaa waxaan tagi doonaa barnaamijkeeni Pixelab waxaan soo gashan doonaa sawirkii aan hadda ka soo saaray backgroundka waan soo ballaarin doonaa sawirkii oo waxaan leekaysiin doonaa cabirka kadib waxaan sii dooran doonaa meesha ku qoran tahay erase meesha aan ku calaamadinay ayaad kasii dooran doontaa circle ama goobada ayaad ka dooran doontaa goobada ayaad leekaysiin doontaa ninka madaxiisa waxaana kasii dooran doontaa meesha aan ku calaamadin doono sawad aragtaan kurkii ninka ayaa inaga baxay waxaan u baahanay inaan loogadaadi soo qaadid oo dul dhigtid meesha aad kurka ka goysid oo si fiican u leekaysiisid sawad aragtaan loogadii waxaan leekaysiiyay meesha uu kurka aan ka gooyay hadaba waxaan ka dhigi doonaa transparent saas ayaan ku save gareysan doonaa markaan save gareysano waxaan la iman doonaa barnaamijkeeni CapCut isaan animation ugu sameeyno soo gasho backgroundka aad jeceshahay anu kan haram ayaan soo gashan doonaa leegaysi cabirka YouTube-ka soo gasho sawirkaagii hadaba saa sawirka animation ugu sameeyno sawirka dooro u samee keyframe markaad keyframe-ka koobaad ayaad hoos u celinaysaa markaad hoos u celiso waxoogaa yar ayaa timeline-ka yar soconaysaa keyframe labaad ku sameynaysaa keyframe-ka labaadna kor u soo saar sawirkaagii hadaba balans leegno soo baxay sawad aragtaan sawirkaagu wuxuu noqday inuu hoos ka soo baxayo hadaba saan in yaro professional uga dhigno waxa dooran doontaa calaamada keyframe-ka ag xigta waxaadna kasii dooran doontaa meesha aan ku calaamadin doono hadaba balans leegno siduu noqday waxa uu noqday mid smooth ah oo professional ah hadaba sideema dhinac ugu riixnaa sawirkeena dooro timeline-kii sawirka u samee keyframe labaad u sameyn doontaa oo dhinac ayaad u riixi doontaa balans leegno saa uu soo baxay side effects markaad doonayso inaad samayso effectigan oo kale waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato elementyada description-ka ku soo dhigi doono keyframe ayaad ku qaban doontaa keyframe-ka koowaad iska diin doontaa keyframe-ka labaad ayaad zoom soo oran doontaa oo waxaad keeni doontaa shaashada number 1ka oo kaliya number 1ka markaad saa u keento balans leegna soo baxay waxa uu soo baxay si yar oo macaan oo number 1ka inuu soo dhawaanay oo kale hadaba sideebaan number 2 u keeni lahayn meesha number 1ka keyframe ayaad ku qaban doontaa kaawas kaga tagi doontaa hadana keyframe kale ayaad ku qaban doontaa markaas jiidi doontaa sawirkaagii oo meesha lambar 2 keeni doontaa hadaba sideed lambar 3 u keeni doontaa keyframe ayaad ku qaban doontaa hadaba ka tagaysaa mid labaad ayaad ku qaban doontaa lambar 3 ay soo gelin hadaba aan sleegno saa uu soo baxay sawad aragtaan waxa uu soo baxay si professional ah hadaba sideebaan zoom in-kan uga saara oo zoom out u sameeya si aan meeshiisa u geeyo keyframe u samee keyframe kana hadana si samee frame-ka labaad zoom out dhe oo ku celi position-kiisii hadaba soo baxay la eeg increasing subscribe-kooga ziyaadaya waxaad ku aragteen editing-ka youtuberada qaar oo isticmaalaya inay subscribe-kooga ziyaadayaan hadaba si aad u sameyn lahayd editing-kaas oo kale screenshot ka soo qaado channel-kaaga kadib waxaad screenshot-kii keentaa Pixelab-ta waxaad masixi doontaa meesha subscribe-kaaga xaqiiqigii ay ku qoran tahay waxaadna dooran doontaa midabka uu leeyahay screenshot-kaagaasi markaad doorato halka ay ku qoran tahay border radius ayaad 6 ka dhigi doontaa pixels-kana waxaad ka dhigi doontaa 15 hadaba waad masixi doontaa marka subscribe-kaagii masaxdid waad soo save gareysan doontaa markaad soo save gareysatid waxaad la iman doontaa barnaamijkaagii CapCut sawirkan soo gelinay waxaadna soo gashan doontaa muuqaalkan oo description-ka ku soo dhigi doono halkaan ku calaamadinaya tagi doontaa waxaadna ka saari doontaa background-ka madow markaad background-ka madow ka saarto sawirka ayaad yareyn doontaa oo waxaad ag dhigi doontaa meesha ku qoran tahay subscribe balans leegno video on TV video ku dhex jira TV qadiim ah editing-kan waxaan u isticmaalay muuqaalkii ka horeeyay balans leegna saan u sameeyno video-ga ku dhex jira TV-ga qadiimka number 2 waxa soo gashan doontaa background-kan iyo TV-ga ayaa soo qaadan doontaa iyo kursiga TV-ga ayaa dul dhigi doontaa kursiga dushiisa muuqaalkiina waad soo qaadan doontaa markaad muuqaalkii soo qaadato waxaad arki kartaa muuqaalkaaga oo ka sareeya TV-ga dushiisa hadaba sideebaad uga dhigi lahayd muuqaalkaaga inuu TV-ga ka hoos maro waxaad ku dhufan doontaa meesha ku qoran tahay layer
share waxaadna kasii dooran doontaa wanka ama layer wanka saa wada aragtaan muuqaalka waxa uu ku dhex galay TV-ga dhexdiisii maanta muuqaalkeenu intaas ayuu noogu egyahay fadlan haddaad wax ka faa'iiday anaga ilaa like subscribe iyo share muuqaalka kan xigana maxaan ka soo hadalnaa wassalaamu calaykum